السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيب وهوذا محمد إيدان هوذا أربش أهنا أفهيان كي إسكو حراها دل إيدباد أرورك هبلها أرقنا فذكاه تفقلين جاراليس لونا سوقع بي تي بي كي وقهرين حكا وحانوغا مهدنقيا الله سبحانه وتعالى noo suurtageliyey waxyaabo badan oo maasha Allah tabaaraka Allah aan ku guuleysanay haddaanu nahay ururka Tafbalan Girls ee ku midoobeen hablaha aragga naafada ka ah in ka mid ah qurba joog iyo in ka mid ah qolqol joogba. Intaa kadib waxaan clipkan maanta u qabtay inaan ugu mahadnaqo mu'asasada khayriga ah ee Al Noor Charity fadhigeeduna yahay dalka Qatar kana hawlgasha magaalada Hargeysa taasoo noo suurtagelisay amba noo hirgelisay inaanu ciidsiino 50 haween iyo caruur isugu jira oo aragga naafo ka ah ciidan ciidul adxada darteed taasoo noo suurta gasheen iyada la'aanteed inaanu ciidsiino ciidan aan kala qayb qaadano caruurta iyo haweenka aragga naafada ka ah. mu'asasadaasi waa mu'asasadii koowaad ee maaragtay ugu horeysay ee sidan oo kale noogala qayb qaadatay arrimaha khayriga ah ee aan wadno. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay inta la midka ah hamba ha noqoto muxuu ahaye mu'asasadaha kale amba mid dawliya amba mid ma garanaysaa loo kala amba ma garanaysaa shacab weynaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba waxaan ugu baaqayaa inay sidan oo kale ay noogala qayb qaataan naguna garabkana ay muxuu ahaye nala garab istaagaan hooyo hiilba. mu'asasadaas ilaahay khayr badan ha siiyo intii kasoo shaqaysay iyo intii soo baxsatayba waxay naga kafaalo qaateen ciidan ciidul adxada darteed kontonka caruurta iyo haweenka iskugu jira soo sheegay iyagoo ugu talagalay ilmo kastaba $50 lacag qadarkeedu dhan yahayna na soo gaarsiiyay $2,500 oo maanta akoonka ku jira ururku uu leeyahay. mahadnaq aad u ballaaran ayaabaan horta xaggan uga gudbinaya haddana hay afhayeenkii ururka TBG meeshaad kasoo saarteen ilaahay wax kaloo khayr qaba Allah idiin soo geliya baan leeyahay. sidoo kale xagga waxaan ka salaamayaa xubnaha ururka TBG say u dhan yihiin dal iyo dabadba xubnahaasoo dhammaantood ah kuwa aragga naafo ka ah oo hablo aragga naafo ka ah. intaa kadib waxaan aad ugu mahadnaqayaa walaalaha iyaga indhaha qaba ee maasha Allah araggooda iyagu qaba hoo iyo hiilba nala garab taagan ee waqtigan ku baahanaba istaanbooyda noo ahay noo taagan walaalkay Cabdifataax Maxamed Axmed Cabdi iyo walaashay Naji Xuseen Cismaan oo ah laba shaqsi oo aad muxuu ahaye ula shaqeeya ururka iyagana waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idiin saaro. sidoo kale waxaan xaggan uga mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha ururka talada iyo tusaalaha iyo taageerada intaba nala garab taagan walaalahaas oo ah kuwa dal iyo dabadba jooga. sidoo kale waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa walaalaha reer Sweden oo ah walaalaha kaliya ilaa maalintii ururka la aasaasay ilaa malinka maanta xagga maaliyadda iyo kharashaadka naga kaba. iyagana waxaan leeyahay ilaahay meeshaad kasoo saarteen wax khayr qaba Allah idinku bedelo. kulli markasta waan isku daynaa oo waan keenaa wixii naloo dhiibay meeshay ku baxeen insha Allah biidnillaahi kariim. anaga waxaygu waa ituso itaabsi sidaa aan idinkula ballanay aan maaragtay YouTube-kayga u soo gelino hawl kastoon qabanno insha Allah biidnillaahi kariim ayaabaan haddana muxuu ahay kusii wadaynaa bartaysadna kala socon doontaan bartana YouTube-ka ku leenahay. sidoo kale xagga waxaan uga mahadnaqayaa fanaanada caanka Sahra Halgan oo ah garabkayga iyaduna maaragtay markastaba noo dhaqdhaqaaqda cid walan u baahana maasha Allah noo suurtagelisay inaan la kulanno ilaahay ka soko iyo gudoomiyaha ururka Soonsaf. dhammaantiin waxaan idin leeyahay inta hawsha nala garab taagan iyo inta muxuu ahaye
taageero iyo tusaale iyo ma garanaysaa wax kastaba nala garab taagan ilaahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro cidan u dhaqdhaqaaqaynaa waa ubadkaa yaryar iyo haweenka aragga naafada ka waa maatida ilaahay dartiiban anaguba ugu soconnaa marka cid kastoo arrinkan khayriga nagala qayb qaadato waxaan idin leeyahay ilaahay idinkana bedelkeeda allah idin siiyo ugu dambeyntii xaggan waxaan uga mahadnaqayaa bahdaan wada shaqayno dalkii ku sugan gudoomiyahayaga ururka hablaha aragga naafada ka ee Tafbalan Girls ayaan Saleebaan Nuur gudoomiye ku-xigeenka Xamdi Cabdi Sogsog kaashaarka Baqasna Jiba kolba sida loo yaqaano Sacde Maxamed Cabdi xoghayaha Najax iyo muxuu ahaayey walaalkan hore u soo xusay oo ah walaalka kaliya markastaba na garab taagan Cabdifataax Maxamed Cabdi Axmed oo si mutadawacnimo noola shaqeeya aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa bulshadeeda Soomaaliyeed aan aad ka u jecelahayna meel kasta ku sugayn baan salaamayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.